sidaad la socoto ururka Somfo wuxuu jiraa muddo dheer wuxuuna qabtaa shaqooyin aad iyo aad u ballaaran oo la xiriira arrimaha bulshada sharciga in iyo guud ahaan marka laga bilaabo sanadkan 2015 January waxaa ku soo biiray xafiis si gooni ah dadka Soomaalida looga caawin doono xagga shaqada taasoo ka timid runtii kadib markii baaritaano badan la sameeyay dawladda Holland taasoo la xiriirta guud ahaan shaqalaanta waddanka ka jirtay si gaar ahna loo fiiriyay dadka qaxootiga ah si hoosna loogu sii degay Soomaalida runtii in ay ka jirto shaqalaan fara badan dhibaatadaas markaan aragnay annagoo la kaashanayno dad arrimahaas khibrad u leh ayaa guddiga jaaliyaddu waxay go'aansadeen inay laga maarmaan tahay in dadka shaqooyinkii loo qaban jiray oo lagu caawin jiray lagu daro arrimaha la xiriira xagga ka caawinta shaqada annaka guddi ahaan yani waa arrin aan markii hore aan ka tashanay inaan abuurno xafiiskan maadaama ay jirto dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ay ku adag tahay habka shaqo raadinta ay ku adag tahay sidii looga caawin lahaa inay shaqo ku helaan ruuxantii waa baahi aad u taagneed waxaan u arkaa tallaabo horumar ah oo hore loo qaaday runtii waana dhibaato muhiim ah oo guud ahaan dadka Soomaalida haysata hadday noqoleed xagga dhalinyarada ragga iyo dumarka iyo intaba marka runtii hawshiisu way socotaa dad ayaana gacanta ku haya waxaan jecelnahay inay noqon doonto hawl lagu guuleysto si dadka Soomaalida ah looga caawin lahaa xagga shaqada iyadoo marka hore waliba la barayo sidii ay shaqada u raadsan lahaayeen sidii ay maaragtay u sameyn lahaayeen shaqo doonisto ah qofku marka uu shaqo doonto runtii waxa jira qaab ama nidaam loo wareysto loo maro waxyaabahaas oo dhan ayaa laga caawin doonaa haddii la yiraahdo waxaan wada shaqayn la leenahay hadda Amsterdam amniga Amsterdam maadaama Sanfo Amsterdam ka furan tahay oo Amsterdam inuu waxay tahay waxaan hadda wada shaqayn la leenahay Amsterdam marka way jiraan dad aan shaqo u diray laakiin waxay mareen dadkaas true Amsterdam qamadiga Amsterdam ayaan u marinay laakiin hadda waxa wiiga soo socdaan rajeynaa inaanu direct shirkadaha ugu diro shaqada way jiraan shirkado badan oo la soo xiriiray oo soo dalbaday dad inaan u diro laakiin marka dad shaqo u dirayso fiir xafiis shaqo markuu qof shaqo u dirayo fiisa kaarkiisa way qofka ana shaqo u dirayso adigu wakiilkaaga marka anagu hadda waxaan isku dayaynaa inaanu dadkii aanu ku sameeyno waxay yiraahdaan verifying and selection waa inaan dadkii ururino ka bacdina doorano oo qofkaan shaqada aan u dirno ka bixi karaa hadaan qof intaan shaqadeeno birna u soo noqdo mar rabno moogta marka hadda ayaa saddex wiig hadda wiig saddexaad aan ku jiraa waxaan diyaarinaa dadkii qofka inaan kaba balwad dhigno shaqada inuu ka bixi karo anta waxa weeye Sanfo meeshaan shirar badan aan ku qabanaa marka shirarkaas aan qabanayno oo dadku isu yimaadaan ayaan horta ruuxantii aan ku wargelinay mid kale waxaa jira leaflet naga soo baxa oo annaka aan ku baahinay in shaqo xafiiskaas la abuuray oo dadka folder ah oo aan siino iyo kaarar aan siino taa waxaa ka sii weyn inaan u dhajino waraaqo ruuxantii uma baahneenba in la gaarsiiyo baahi taagan bay ahayd oo markii dadku maqleen in xafiis kala furay wuxuu noqday mid aad iyo aad mashquul ah oo u yimaadaan wax walba marka la bilaabayo wax laga bilaabaa meel hadda waa pilot project ama waa hawl marka hore lagu tijaabinayo Amsterdam marka haddii hawshaasi ay halkan ka guuleysato macnaheedu waxay tahay in lagu ballaarin doono dhammaan waddanka Holland gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ay Soomaalidu ay u badan yihiin sida Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven iyo magaalooyinka la midka oo dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin laakiin tani waa tijaabadii ugu horeysay oo halkan ayaa laga bilaabay marka haddii ay guuleysato waa lagu sii ballaarinaya magaalooyinka kale ujeedada ugu weyn aan u furay xafiiskan wuxuu ahaa inaan program dhibaatada hadda sheegtay oo ah in qofku markuu 6 bilood joogo shaqo laga soo ceyriyo in aanu ka hortag ku sameeyno maxay tahay ujeedadu waxay tahay qofka Soomaaliga inaan training siino hadduu luqadda xoogaa ka hooseeyo xataa waxaanu heshiis la kula jiraa hataa hadda wada shaqayna dhex mari doontaa qola oo dadka luqadda barta oo intensive training qofka week ama 2 week ama 3 bilood waxa inuu dadka qof uu ku hadli karo oo gaarsiin karo marka waxay tahay ujeedada qofka inaan training siino contract siino anagu global connection ahaan global people ahaan sorry oo uu annaga noogu shaqeeyo shirkadda magaca anaga qofku marka meesha qofku markuu 3 bilood joogo iska tagi jiray ma dhacayso hadda laakiin wuxuu u shaqeynayaa shaqo joogto ah leeyahay oo haddeertaan waa la qoraa sababta waxaa weeyaan by email ayuu kusoo dirayaa ayuu kusoo dirsanayaa kabacdi waa lala xiriirayaa asagoo Den Haag jooga Rotterdam, Leeuwarden, Maastricht meeshiisa ayaa lagula xiriirinayaa halkaas saas lagu raadinayaa waa jirtaa horta shaqadu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qofka bini'aadanka ah runtii in asagu uu shaqaysto shaqada looma shaqaysto kaliya inaad lacag ka hesho laakiin shaqadu qofka bini'aadanka waxay u yeelaysaa faa'iidooyin fara badan oo ah inuu qofka asagu qiimo yeesho waayo qofka haddii uu shaqaysto
asaga waxbuu isku tarayaa waddanka uu jooga laftigiisana waxbuu kusoo kordhinaya waayo qofku markuu shaqaysto waxuu bixinayaa canshuurtaas waxaa qaadanaysa dowladduna waa ogtahay waddankan caafimaadkii wax ka qabataa waxbarashadii wax ka qabataa nabadgelyadii wax ka qabataa marka qofku marka uu shaqeelo asaga keliya wax iskuma taraya mujtamaca dhan iyo wuxuu taraya marka muhiimaddu waxay tahay in qofka laga saaro lacagta kaalmada ee dowladda uu helo shaqo iskiisa si uu asagu iskiis uu wax isugu taro dadkiisana wax ugu taro dowladdana wax ugu taro taasina waa arrin aad iyo aad muhiim u ah qofka naftiisa qofku markuu waddankan shaqeeyo waxaa la yidhahda waxaa jira minimum loan 1500 wey qofku markuu outkeering qaadanayona wuxuu qaadanayaa 70% ka mida minimum loan ku dhifo adigaba 1570 ku dhifo 70% waa 900 qofku markuu cayr qaadanayo 900 qaadana markuu qofku minimum loan waa meesha ugu hooseysa ka hoos ma qaadan karo laakiin heshiis waxa gal ka badan qaado waxa laga yaabaa inaa 1800 ama 2 ku shaqeysa waxay ku xiran tahay drive-ka oo shaqeynaysa ama company marka absolutely qofku wuxuu mar walba uu better off yahay ama uu u faa'iido badan markuu shaqeysanayo wuxuu helayaa xorriyad hoos qof markuu shaqeeyo waa qof leeyahay waayo waa taqaanaa waddankan haddii aad cayr qaato waxaa loo leeyahay qofku hadduu 3 beri ka badan kula joogo waa inaad noo soo sheegtaa laakiin markaa shaqaysanaysa waxaa haystaa xorriyad waa xorriyad waa lacagta kuu kordhay waa maskaxaan aad u koraysid ifan marka adiga shaqaysid iyo markaad guriga fadhid isku matid isku outqaaf ama waxa la yiraahdo isku kharash matid waxa laga yaabaa haddaad maanta shaqaysid inaad guriga timaadid galabta hore ka seexatid laakiin markaad maalin guriga soo joogtid wixii kusoo galaba markii waad bixinaysaa moogta marka qofku niyad ahaan caqli ahaan qof ahaan mar walba waxa u fiican u shaqaysto. Ik ben medewerker van bureau Inzicht en ik ben de vaste adviseur van Somval. Ik geef een advies en helpen bij de ontwikkeling van tal van projecten en ondersteunen en bij de uitvoering daarvan. Ik denk dat het de laatste een heel erg zorgelijke ontwikkeling is geweest dat zoveel mensen die oorspronkelijk uit Somalië komen niet de weg naar de arbeidsmarkt hebben kunnen vinden. Waardoor ze zichzelf in een isolement plaatsen. En juist dat hele stuk participatie in Nederland, in de Nederlandse samenleving, niet tot stand komt. Nou, dit initiatief is heel erg interessant. Waarom? Vooral ook omdat het probeert mensen uit de eigen gemeenschap een training tot intercedent te geven. En die dan de eigen doelgroep heel goed kan bemiddelen richting werk. مشروعاً waxaan u arkaa arrin aad iyo aad muhiim ah annagu haddaan nahay Soomaalida ku dhaqan Amsterdam iyo xigeenada saatee jaaliyada Samfow tallaabada ay qaaday waa tallaabo aad iyo aad yani maaragtay aad iyo aad maaragtay ay horumar u tahay oo dadku aad maaragtay ay u tixgeliyeen marka waa arrin aad u fiican weeye yani maaragtay si yani maaragtay baahida looga baxo waddankan yani maaragtay jira والله wax wanaagsan baan arkaa bulshada muwaafaqaya wax loo baahnaa way waa naga dahay aad baan ugu faraxsanahay haddii la furo adigu weli iska qorto horta waan ka qorantaa aad iyo laakiin weli shaqo lagu mudarin weli shaqo la ma dirin ma aan bilaabin waa maasanta